inuu suuqa laga dabageeyo maalmaha waa ka dhacsanahay beer market ma hadda sii galownaa masa correctiona ku jirnaa wax isdabagadiya abdeeda laga dhigaa marnino shukuru waa arshida xaaladda ma sahlana wallah mali maqlaa shalay ani maraa mashquulsanaa arrinta beer marketka laga hadlaay dad baa u malay in beer market aan ku jirno ama aan gelayno beer market correction yar oo 5% iyo 4% iyo 3% beer market maaha beer market wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa waxyaalo lagu aqoonsado dhacdooyin ma fahantay beer marketkii hore haddatan kii oo maxaa la dhahaa soo dhaafay 2022gii waxaan aragnay in covid la galay in dagaalo la galay in interest rateki waxaasoo dhan dhibaatadaas dhan aragnay ya beer market oo saxa aan galnay laakiin haddartaa beer market see lagu gelaya beer market waxaa lagu gelayaa in dhaqaaluhu burburo dhaqaalihii weli waa taagan yahay weli waxa waaye maxaa la dhahaa inkastoo shutdownkan iyo waxaan ay suuqa dhibayaan oo volatility-ga samaynaya laakiin beer market markaa rabtiin inaad isha ku haysiin waxa waaye markii SP 500 20% ee ka hoos marto 20% minus markay gasho markaas wiishkaa kugu daaran markaas waxaa waaye beer market saankaasa ugu horeeyo 20% maray dhacday waxay dhacday april maray aan ku dhowaanay inaan beer market galno haddana reboundsaan soo sameyna waa kasoo laabanay mafahamtay ya april markuu tariifka samaynayay maxaa la dhahaa trump sidaas camal SP 500 way u dhowaatay xataa qoraalada SP 500 april laga qora fiiriya ya almost beer market baa la galay almost beer yani lama gelin as a whole the market laakiin sectorka SP 500 wuxuu ku sigtay inuu beer market galo sectorka nasdaq wuxuu ku sigtay inuu beer market galo sectorka cryptocurrency waxay ku sigatay inay beer market gasho dhacdooyinkaas waa inay la sugaa beer market laskama galaayo laakiin bull marketkii oo waalaana weli lama arko samahan bull marketkii la waalna oo nalaga ballan qaaday oo super cycleka ahaa mise altcoinkii weli taas si fiican looma arkin 2024 maxaa hawada qabsaday waxaa hawada qabsaday meme coins iyo BTC oo dhaqaaqayso meme coins oo lacag badan la gelinayo waa laga soo baxay meme coins waxaa la galay ishek eth iyo sol iyo coinan kale sida maxaa la dhaha ecashkan hadda dhaqaaqa fiican samey marka mar walbo narrative baa la dhaqaajinayaa mar walbo waxawaaye sector baa soconaya laakiin as a whole market dadka bull marketka hore rabo in ay arkaan siday waagii hore ahayd taas weli waaye taasaa waxay keenaysaa in haloo dadka ay ku caajisaan mafahatee laakiin coin ka mid ah coinanka portfolioda ku jirto waxaa laga yaabaa habeen inaad soo kacda kuu qarxo adigoo ogeen tusaale ICB 50% 60% uu sameeyey marketka dhan uu daadanayo ya qofkii hoos ka soo qaatay ICB soo aruursanaaye maxaa la dhahaa ishek DCA ku samaynaye averagekiis yaraynaye hadda wuxuu ku jiraa profit ya weli baa soo qorayeen portfolioden waxaa badbaadiyey ICB oo profit ka dhigay otherwise waxay ahaan lahayd negative ma fahanta hadda waxaana haysto waa siyaasad xumo guriga cab waxaana haysto maxaa la dhahaa suuqan volatility badan dhigaya waa isku adkeentan guriga cad iyo congresska maxaa la dhahaa interest ratekii oo Jerome Powell iyo guriga cad waxaas waa waxyaalaha suuqa haysto laakiin dhaqaale ahaan haddaad aragtid dhaqaale ahaan meel walba haddaad aragtid shaqada way socotaa maxaa la dhahaa Yurub way kala kacsan tahay carabtu way kala kacsan tahay qof ma arkaysid abaar ku jirto abaartii aawe recessionkii la sheegaya aawe recession ma aragtid maya recession laguma jiro abaar laguma jiro inflationka wuu soo degay waxaan ka hadlaynaa 2 years ago inflationka markuu maraya caagi saliida oo cuntada lagu gado wuxuu maraya $6 umada asagoo $3 oo $6 baan kusoo iibsanayna corona time markuu inflation soo kacay haddana waa soo dhacay ukunta lama iibsan karin uu qaali buu ahaa marka maxaa waaye adinka waxaa ka hadlaysay beer market hadda
kow iyo laba ma joogo beer market ya siyaasadana hadday saxmato oo ninkan odayga guriga cad fadhiya uu saxo siyaasadiisa then maybe markaas inaan aragno bull market waalan waxaan sugayna waa bull market waalan mehe beer market ma sugayno waxaan rabaa ustaad mmo dhowr su-aal inaan ku weydiiyo dadka waxaad arkaysaa disbelief aad u tiro badan inay ku jiraan marka see looga bixi karaa disbeliefka wallahi in qofka uu dee baaritaan badan sameeya inuu baxthi weyn sameeya uu fiiriyi taariikhada waxyaabaha dhacay I believe qofku wuxuu ku badbaadi karaa in aqoontiisa uu kobciyo keliya cabsi way jirtaa laakiin cabsidaas waxaa lagu daaweeyaa inuu qofka baaritaan dheer sameeya markii kadib waxaa usoo baxaya yani in suuqaan uu dhaqaaqi doono inta badan cabsida waxaa keena qofka ma yaqaan wax dhacooye wuxuu maqlaa dadku dhegeysanaa bas toban qof uu dhegeysanaa mid wuxuu ku leeyahay waa la daadanaa mid wuxuu ku leeyahay wuu dhaqaaqaa mid wuxuu ku leeyahay xaggaa fiican mid wuxuu ku leeyahay iska tag marka waa la wareeraa marka dhiga badan aad yeelisay yani dad badan aad dhegeysatay agooda okay beer market calaamadooyin baa lagu gartaa haddaan waan ka hadlay marka adiga laba calaamad saddex calaamad oo aa isleedahay beer market baa la geli karaa haddii la arko asxaabta igu xiran team igu xiran markaan arko maxaa la dhahaa signalkaas markaan arko asxaabteeda waxaan dhahaa maxaa la dhahaa swap sameeya oo lacagtiina USDT ku bedela bal hal sign mise laba sign ka mid ah noo sheeg aad ilaalsatid suuqa markii lagu dhiiranayo maaragtay markuu suuqan kala kacaa dhowr jeerna way dhacday dadkii joogay sanadkan lasoo dhaafay ama dhaqaaqyadii lasoo dhaafay dhan markaad aragtid ummad dhan oo suuqa ku dhiiranaya dad dhan oo laga celinayo suuqa xataa applicationada waxyaabaha lagu garanayo waxaa ka mid ah app storeka iyo google playga meelaha applicationada laga soo degsada bal fiiri applicationka ugu badan ay ummadda soo degsanaya xilliga aan dala taagan yahay hadduu applicationkaas kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad uu ku jiro for example coinbase binance applicationada kiribtada hadday meesha kasoo muuqdaan beer marketka uu dhow yahay hal seasonkaa ka mid ah waxa labaad aan ugu soo daray koo waxa dhani applicationadaas in lagula soo dego oo dadka dhan ay isticmaalaan iyo dadka ay ku dhiiranaan suuqa waxaad arkaysaa dee kuwa youtubereyda iyo tiktoklayda inay kulligooda ka hadlaan kiribtada yani kama filaysid qof saas camal inuu kiribta ka hadla moogtahay waay buka suuqa kacsanaa suuqana waa lasoo daadiyey waxyaabahaasoo lagu gartaa calaamada labaad oo lagu garanayo suuqan in beer market la gali doono waxaa ka mid ah hal seasonka in la arka hal seasonka waxaa qoynanka oo ay dadka jecel yihiin oo hadda laga niijabay oo laisdhahayo way dhammaadeen waa lagu kala tegaa inay dhaqaaq waalan ay sameeyaan hadda tusaale 2024 meeqa coina dhaqaaqay wax aanan dhaqaaqin malaha solana ka mid ahaa ethereum ka mid ahaa avakisa ka mid ahaa coinanka la yaqaani dhan waxay sameeyeen between 6 ilaa 8x meelahaas qaara 10x 30x sida solana sameeyey marka xilliyadaas markii lacag waalan laga sameeya dee adi waxaad isu diyaarinaysa suuqan inuu kala wareegayo why because mar walba kala wareega maxaa sababay ummadda markay lacag sameeyaan waxay diyaar u yihiin lacagtooda inay kaash gareeyaan hadday kaash gareeyaanna sel barashara dhacay so haddaa aragtid dadkii oo cabsanaya isku dhaxyaacsan dhahay beer market aa la galaa beer market maaha ka yaabin beer market waxaa la galaa markaad adi aamintid inuusan beer market jirin sida hadda bilooyinkii lasoo dhaafay qof haddaa ku dhahdeed beer market baa la gala wuxuu ku leeyahay khafiifa noqotay waa waalatin iyo nagala tag waxa aad sheegaysa xilligaas camalu marka beer market noqonaa iyo astaamo badan casharkaasna SFC aad galaysiin hadduu qofku ku laabta wax badan oo ka faa'iida